gobolka Minnesota sida ay sheegtay waaxda caafimaadka shantii qofba hal qof ayaa la sheegay in uu qabo xanuunka cudurka dhimirka. haddaba gabdho Soomaali ah ayaa doonaya inay jaaliyadda ka caawiyaan sidii ay jaaliyadda ugu sharaxi lahaayeen una bari lahaayeen xanuunka dhimirka waxa uu yahay. Maxamuud Mascade ayaa warbixintan ka soo diray Minneapolis. saddex gabdhood oo Soomaaliyeed oo ganacsadayaal ah ayaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ka hirgeliyay rug caafimaad oo lagula tacaalayo xanuunada ku dhaca dhimirka. gobolka Minnesota shantii qofba hal ka mid ah waxa uu sanadkii la kulmaa xanuunka dhimirka sida ay shaacisay waaxda caafimaadka ee gobolka Minnesota. gabdhahan Soomaaliyeed ee rugtan furay ayaa ujeedadoodu waxa ay tahay inay jaaliyadda Soomaaliyeed gacan ka siiyaan fahamka xanuunada dhimirka sidoo kalena ay adeeg caafimaad u fidiyaan dadka qaba xanuunadaasi. waxaan ogaanay bulshadeena Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Minnesota inay baahi badan ay ka jirto. aniga idil ahaan turjubaan ku soo shaqeeyay dhowr sano ka hor ilaa 10 sano. waxaa jirta cuduradii in anaga wixii aan qarsano dan waxaan isdhahnay bulshadii markaan soo dhaxgalnay aan fiirinay baahiya ka jirto. Soomaali waa waalin yahay waalid waxaa jirta wadanka dharka la qabo aad ku shaqeysan kartid daaweyn aad ku qaadan kartid aan lagu la sheekaysan karo intay dhibaatadaas heerkaas sare ay gaarin. taas darteed ayaan ugu fikirnay inaan furno healing path. idil Axmed Nuur Maxamed oo ka mid ah gabdhaha suurageliyay furitaanka rugtan caafimaadka dhimirka ee healing path ayaa sheegtay in rugtooda caafimaadku ay fariisan doonaan dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal khibrad leh oo baaris baxnaanin iyo daweynba siin doona bukaanada qaba xanuunada ku dhaca dhimirka ee rugtooda soo booqda. idil Axmed Nuur ayaa intaa ku dartay in healing path ay sidoo kale jaaliyadda Soomaaliyeed ka caawin doonto dhibaatooyinka qoyska oo qaarkood la rumaysan yahay inay horseedaan isku booqitaanka laga dhaxlo nooc ka mid ah xanuunada dhimirka. inaan ka hortagno familka burburayo ilmaha school drop afka ah in maxaa kale ilmihii iyo waalidku isfahmeenin ka hortag waxaas hadda anaga hadalka isku caburiyo guriga aan dhex fadhiyo waxaa dhici karta waxba in laga caawinin oo stage-ka ugu xumaa aan gaaro. jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo qaarkood ay xafladda daahfurka ka soo qayb galeen ayaa soo dhaweeyay hirgelinta rugtan caafimaadka dhimirka. والله وحرن عاد لوجو بهنا أو ماركتي نوعية ذو كله إن عاد لوجو فرو إن مقالة مينيابوليس وحين كوسو كردين كرتا إن أي حل يدو أي وهش يبحنانين دتك بدن ترى بدن وايد دبنا assessment بدن مينيابوليس إن health department تيجي كوسو بين xanuunadaasi dhimirka ah qaba. inkasta oo dhaqan ahaan bulshada Soomaaliyeed qaarkood aanay ka hadlin jecelayna in lagu ogaado xanuunadaasi wixii la xiriira haddana waxay jaaliyaddu rumaysan tahay in la gaaray waqtigii bulshada laga wacyigelin lahaa inaan la faquuqin dadka qaba xanuunada dhimirka sidoo kalena lagu dhiirigelin lahaa qofkii iska shakiyahay inuu talo iyo daryeel caafimaadba u raadsado sida ugu dhaqsiyaha badan. Maxamuud Mascade VOA Minnesota.